Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dear students. How is everybody doing? I hope that you all doing great. waxaan rajeynaya insha allah inaad dhammaantiinba wanaagsan tihiin. Soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaadba insha allah xiisadeena caawa waxay noqon doontaa must. waxay noqon doontaa maxay? Must. way must maxaa loo isticmaalaa? Must waxaa loo isticmaalaa waxyaabaha waajibka markaad tusaalahaan leedahay waxaas waa kugu waajib ayaa isticmaalaysaa. For obligations waa expressionkeedu waa maxay? waa for obligations waxa weeye waxyaabaha waajibaadka ayaa loo isticmaalaa. tusaalahaan waa inaad salaada tukataa, waa inaad waalidkaaga adeecdaa, waa inaad masaajidka tagtaa, saasoo kale markaad doonaysa inaad qofka wax master aad ku adkayso master kaga dhigto aad waajib kaga dhigto ayaa isticmaali doonta. Formku waa maxay? waa subject plus must plus infinity. waa subject plus must plus infinity. waa subjectigii must. subjecti waa maxay? waa ficil sameeyihii iyo must baad ku daraysaa kadibna ficilkii ayaad ku daraysaa. Alright, examples kan gudubna. Number 1, I must pray 5 times a day. waa inaan 5 salaadood maalin kasta tukadaa. I must pray 5 times a day. waa inaan maalinkii 5 salaadood tukadaa. We must behave well. waa inaynu si wacan u dhaqannaa. Number 3, they must learn regularly. They must learn regularly. waa in ay si joogtaa wax u bartaan. Regularly waa maxay? si joogtaa. Alright, you must listen to me. You must listen to me. waa inaad dhegeysataa adiga. waa inaad dhegeysataa. tusaalahaan waalidkaaga kula hadlaya kuula you must listen to me. waa inaad dhegeysataa aniga. Alright, he must understand her. He must understand her. waa inuu fahmaa isagu iyada. isagu waa inuu iyada fahmaa. waayahay, she must speak properly. She must speak properly. waa in ay si wanaagsan u hadashaa. Properly waa maxay? waa si wanaagsan. It must stay clean. It must stay clean. waa in ay nadiif ahaataa oo aanay noqon wax meel wasakhaysan. tusaalahaan the chair must stay clean. kursigu waa inuu ahaadaa kursi qof aad leedahay sababta kursigaas waa inuu ahaadaa mid nadiif intaadii keenin oo kale. It must stay clean. waa inuu nadiif ahaadaa. Abdi must stop smoking. Abdi waa inuu joojiyaa maxay? sigaar cabista. Question formku waa maxay? Must he understand her? Must he understand her? ma in uu isagu iyada fahmaa. marka doonaysa question formka inaad su-aal ka dhigto waxaad ugu horeysiinaysaa must ayaad ugu horeysiinaysaa. subjectiga inaad ku xigsiinaysaa. Must he understand her? ma inuu isagu iyada fahmaa. Must Abdi stop smoking? Abdi ma inuu sigaar cabista joojiyaa. marka question formka must ayaad ugu horeysiinaysaa. waayahay, negativekana maxaad samaynaysaa? must ayaad not ku daraysaa oo maxaad dhahaysaa? he mustn't ama he must not understand her. He must not understand her. maya isagu inuu iyada fahma maaha. Abdi must not stop smoking. Abdi waa inuu maaha inuu sigaar cabista joojiyo. Abdi maaha inuu sigaar cabista joojiyo. marka must iyo not marka la isku xiro sidii casharada hore aan soo dhignay can iyo not la iskugu xidhayay sidoo kale la isku xidhayay auxiliary verbka iyo not ayaa tanna maxaa iskugu xidhaysaa? must iyo not. Mustn't. He mustn't understand her. She mustn't understand him. waayahay, anu gudubna su-aalaheena. Practice speaking waad ka tegaysaan anaa idin weydiinaya laakiin saa exercisekana muxuu noqonayaa? videoga like saar, kanaalkana subscribe dhe. playlistyada kuu muuqdana ka baro dhammaan kursooyinkan. iskiriskaaga oo badan waa fursadahaaga shaqo oo badan. haddaad rabto inaad ku soo biirto kalaasyada khaaska ah oo aan luuqadda Englishta kaaga dhisno sida ardaydan. I always, hit the book, try to read a lot of, phrases, whatever in English. We're going to say it's a very, very big topic, like how you manage your time. fadlan nagala soo xiriir numberskan kuu muuqda.